marka ugu horeysa waan idin mahadnaqaynaa sidaa u soo diyaariseen xafladan iyo sidaa uga soo qayb gasheen innagoo ku soo dhaweynayna halka madaxweynaha aynu u dooranayno doorashada dhow xisbigeenna iyo dalkaba aad baa mahadsantiin hadalka badin maaye laba midhun baan idin tusaalaynayaa oo aynu isxaaqa ku wada hadlayno oo aynu u baahanay inaynu fahanno su'aal baan idin weydiinayaa intii ay Somaliland jirtay mar qura kamaynaan qadin dawladda inaynu wasiirro ku yeelano ama wasiir waxaa maqlayseen in badan xildhibaan guruje oo cabaraya oo madaxweyne candho dhexe way haraadantay madaxweyne halkan ceel ma jiro madaxweyne halka waxba ma yaalaan madaxweynada haya mar qurana looga jawaabina maxaa dhiman madaxweynaha uu garanayo waqtigii sidaa uu sheegay madaxweyne deegaanka madaxweyne dalka oo dhan cadaalad sameeya waayo dadka wax tabanaya hadday adiga yihiin iyo haddii ay dadka kale yihiin xaq bay u leeyihiin in la dhageysto marka waxa aynu doorashadii uu kaameeyay uu bilaabaya goordo waa layna beernaxawsanaya kanaynu helaynaa keerbaynu helaynaa maanta mid qulub baynu raadinaynaa waxa kale Somaliland baynu u daynaynaa madaxweyneynu raadinaynaa markaas yidhi kalluun wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh